الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا إلهي بمهد له مركحية وحان أمهد علينا دولة فدرالك الصومالية ومانتو بشو أي شناد لواتن تهي ديق عافماد وأخ قلبك كوفر 19 أغابية كوبان نوسو Gaadhsiisay Gobalka Sanaag gaar ahaan degmada Baran aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waana gudoonay aad iyo aad baan insha Allah ugu mahad celinaynaa insha Allah meelihii loogu talagalayna insha Allah waa wada gaari doontaa iminkana waxaan ku wareejin doonaa isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka amaal agabkaasoo ka kooban 210 kartuun insha Allah waxaan ku wareejinaynaa isduwaha wasaaradda caafimaadka baan ku wareejinaynaa goobjoognala assalaamu alaykum warahmatullahi maanta halkan waxaan noo timid deeq dawladda federaalka noo soo dirtay wasaaradda caafimaadka qalab ku saabsan xanuunka COVID-19 oo mahad celinaynaa anoo mataliya wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag waxaan gudoomay 210 kartuun oo insha Allah baahida gobolka oo dhan xarumihiisa oo dhan lagu gaboolayo insha Allah waana ku mahadsan yihiin insha Allah oo mahad celinaa dawladda federaalka iyo wasaaradda caafimaadka maanta oo taariikhdu tahay 20ka bisha May waxaan taaganahay airportka magaalada Baran ee gobolka Sanaag waxaan u taaganahay muddo 6 saacadood ku dhow imaatinkii diyaaradii dawladda federaalka ay u soo dirtay gobolka kan gaar ahaan degmada Baran iyo guud ahaan gobolkaba alxamdulillah waana soo gaadhay deeqdii dawladda federaalka si fiican ayaan ugu mahad celinaynaa dawladda federaalka dhammaan dadkii ka qayb qaatay hawshaas fududeynteeda iyo shaqadeeda aad baan uga mahad celinaynaa waxaan aad ugu mahad celinaynaa waliba xubnaha ugu sareeya dawladda federaalka wasiir Jamaal xildhibaan Xaaji Ismaaciil iyo xildhibaanada kale ee gobolka matala ee ka tirsan dawladda federaalka maanta shucuubta dadku aad bay u faraxsan tahay waa deeqdii ugu horeysay oo soo gaadha gobolkan oo dawladda federaalka ka timi waxaan rajaynaynaa wixii dambe ee gobolkan loogu talagalana inay sidan oo kale toos halkan ugu yimaadaan oo ay dadka dawladda federaalka ay gobolkan u soo gaarsiiso ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala inoo fududeeyay in soo gaarto dawadii maxaan ku raahday ay soo dhiibtay dawladda federaalka runtii waxaan u malaynayaa maanta waa maalin ka duwan maalmaha kale maadaama ay deeq ka timid dawladda federaalka ay halkan si toos ah u soo gaartay waana uga mahad celinaynaa cid kasta oo ka soo shaqaysay waxaan u malaynayaa su'aal wax badan la weydiinayo 4 sano ah oo la lahaa dawladda federaalka ah meeday waxaan rajaynayaa maanta insha Allah inay bilowgeedii tahay su'aashaasina insha Allah ta'ala ay madaxdu maqli doonaan wax badan baa la weydiinayay laakiin waxa leeyahay geela markii lagu heesayo waxa la yiraahdaa indhayala lowkiisa oo man in la nacaymod oo ilmada sayr waa loo yahay baa la yiraahdaa waxaan leeyahay dawladda federaalka ay way noo soo jeensantay insha Allah waana tan hadda wixii ugu horeeyay in soo gaarsiisay cid kasta oo ka soo shaqaysay maxaan ku raahday isduwa caafimaadka maayarka gudoomiyaha dhamaantii waa ku mahadsantii baan leenahay wassalaamu alaykum warahmatullahi xildhibaanadii iyo wasiiradii ka soo shaqeeyay oo ka soo jeeday deegaankan iyagana runtii waxaan leenahay si mahad gaar ayaan u celinaynaa saxaafadda oo iyaga ruuxadooda ilaa saaka taagna waxaan leenahay idinkuna aad iyo aad baa mahadsantii